سنة لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliya barnaamijka radio Boorame ka dhageysanaya caalamka tacaladiisa. walaalayaal, bishii Ramadaan ilaahay caafimaad buu inoogu dhameeyay, dhammaanteen inaga aqbalo bishaasi Ramadaan. walaalayaal, ilaa imika anu waxaan ka gamcilaa oo aan yaabana dulumka ka taagan Somaliland, meesha Saameel layidhaah ee boorka iyo Saameel ee Ruuqi, dhibaatadii dadkii loo geystay 25 cisho waxay ku xidhnaayeen jeel aan jeel ahayn. dadkaasi waa la jirdilay, dhib weyn baa la gaadhsiiyey. waxaa la yaab leh walaalayaal, oo wax bini'aadanku uu ka xumaada ah, inta la laayay oo la garaacay oo 22 cisho jeel lagu jiray. waxa ku jiray kuwa sokor leh, waxa ku jiray kuwa dhiikara, waxa ku jiray dad waayeela, waxa ku jiray dad hantidoodii laga baabiiyey, dad waxa jiray la garaacay oo nabur loo geystay. dadka inta la sii daayay baa waxa la yiri madaxdiidii baa idin xidhay, dawladdiina baa idin sii daysay. ma caqliga bilaaran bay gashaa? rag baan arkayay TV ka hadlay Boorama, ilaah baan nagu dhaariyay oo lahaa dawladdiina baa idin xidho, imikana idinkii idin soo daysay. waa kuwii dabadhilifka hawey, waa kuwii calooshooda shaqaystayaasha ahaa, waa kuwii aan dadka bilaadanka ilaahay abuureen la midka dulmiga lagu hayaanan arkaynin, jeebka inta loogu shubay arkay kaliya. waxaan la yaabana wallahi imika caqligayga ku guuxaya oo aan rumaysan lahay meesha Somaliland la yiraahdo hay'adahan human rightska, human watch, Amnesty International, kuwan xuquuqul insaanka u hadlay miyaanay joogin? soo kuwa qaaryaada jeelashan booqanay ma dad gaar ah u hadlaan? dadkan inta 22 cisho jeel aan jeel ahayn lagu hayay, xorriyadoodii la dhibaato loo geystay, jirdil loo dhigaystay, wixii ay haysteen laga baabiyey, loogu daray jirdil, dhibaato soo gaadhay, aan cid u hadashaa jirin. miyaanay dulmi ahayn walaalayaal? nabigu muxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم ومريال. نبي محمد صلى الله عليه وسلم لبا وحي مليه إني عقابتك سود الدكتور وقفك تعليم كأهوي إن international community هذا الرحلة تدك حق دراد الله صح الرحلة هذين اللي سيدا يوحي كتوس يسا إن ظلم لقوها يست. نبي محمد صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما ومظلوما. walaalka uu gargaar hadduu galdaraya gardarada qabato heela u baahan heela si waxaan leh shacabka Somaliland joogo oo dhan. war maanta waxay ku dhacday kuwii gobolka Awdal, bari waxay ka dhacaysaa Hargeysa, sahanna waxay ka dhacaysaa Burco, Laascaanood. waad ogeydaan wixii ka dhacay, waad ogeydaan ciidamada ninkii u hadlay inuu lahaa warsan gariga uma baahninba, maalin dhaweyd kalena maanta lagu daray. war ciidamadan beelaha noqday mujtamaca in laga qabto miyaanay ahayn oo dadka u gargaaraan xaqa oo ay noqdaan dad u heeliya dulmiga in laga saaro? kuwan sax xisbiyada la sheegayay ma hadan unba ujeedadooda dadkan maxaa maxkamad loo soo saari waa dadkii dhibaatada u geystay dadkan? way dadkan inta la garaacay loo sii daayay dad la yiri xuquuqdiina la yiri xadii soo kuma tusayeen laga qartarnaa ta xaqay lahaayeen intay xidhnaayeen hantidoodii laga dhigay iyo dadkii dhaafayska la gaarsiiyay ee dabarka laga garaacay ee curyaanka laga dhigay iyo kuwii suuxay aaway way ma cidlay markaa ma iyay ka dhashameen dad lahayn? miyaanay dadka bini'aadamka xuquuq isku lahayn? dadka Boorama jooga ee baarlamaanka ku jira iyo kuwa golaha ku jira miyaanay waxaan arkayn dadkan xuquuq ma leh? miyaa dadkani ma dad la iska laynayo sida xawayaanka? waxaan miyaanay ahayn xuquuq xaq darro? miyaanay wixii lagu sameeyay Saameel? walaalaha baa nagu dhaariyay dad baa la iska soo xirxiray 22 cisho meel iskaga xidhnaayeen. dabeetana waxa lagu jawaabay dawladdiina ay soo daysay. kuwa kale oo af miishaaro meel istaagaya leh iyadoo ma shalaynayd xidhay. war dadka wala jirtay dhibaato loo geystay. caqliga bilaadanka ee saliimkii ma qaadanayo waxaan oo kale. waxaan leh dadka meel walba barnaamijka radio Boorama ka dhageysanaya, war dulmiga ha laga kaco oo ha loo heliyo xaqa sidii uu nabigu yiri laa yamna'anna ahadukum yaanu inaga min xaqa inay sheegtaan مخافة إنكم كبقية حقي وسوى البخوص وكاري والعلماء مقادوا لي راي
niman odayaalay leedahay, niman waxgaradabay leedahay. dadku ma wada caynkaasuu yahay markaa? maya, waxbaa jira meeshan. nebigu wuxuu leeyahay xaqa iyaydaan u qarin idinkoo baqaya, idinkoo ka haybaysanaya, iyo idinkoo masaalix ilaashanaya. marka dadku waxay u badan yihiin, majoritiga dadku maslaxadaasay u badan yihiin sida xadiiska nabiga inooga muuqata. laakiin haddana dulmi dhammaan maaye, waa dadka waxaan leeyahay shacabka ha loo heliyo, masaakiinta madluumka ah ilaahayna ha loo baryo. dhammaan dadkay dhegaysanaya raadiyo Boorame, waa anigu Xaamid Cali Cilmiya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.